ciidamada booliiska degmada Oodweyne ee maamulka Somaliland ayaa maanta fuliyay howlgal lagu burburiyay keedad dhuxul oo lagu keedinayay tuulooyin hoostaga degmada Oodweyne. ciidamada booliiska maamulka Somaliland ayaa howlgalka xooga ku saaray soo qabashada dadka jira geedaha isla markaana ka ganacsada dhuxusha. isku duwaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo warbaahinta la hadlay ayaa degnin adag u diray dadka ka shaqeynaya xaalufinta deegaanka ee dhulalka banaan ee laga guuro kashada dhuxusha. isku duwaha ayaa intaas ku diray in qof kasta lagu arko isagoo ku kacayo falal qayb ka ah xaalufinta deegaanka lagu qaban doono gacan bir ah, wuxuuna tilmaamay in la tigsan doono sharciga. maanta waxaanu galnay howlgal ku saabsan dhuxusha ilaalinta deegaanka iyo la dagaalanka dhuxusha. saaka waxaan ka soo baxnay oo ka soo kalahnay Oodweyne, waxaan soo marray tuulooyin badan oo ay ka mid yihiin Cabdidheere, Balle Cigaal, Qolqol. imika waxaan ku sugannahay Balle Hagar iyo Baarac dhexdooda ayaanu ka gubaynaa dhuxushan. kolley kuwayo kalena waxa weeyaan waanu ku soconnaayo way ku nagu dhow yihiin. hawshaas oo ah hawl aanu in badan ka howlgallay deegaanka nimkaanu taagannahay. laakiinse aad moodo dadku marka ay ka guuraan beeshu ka guurto meesha abaarta oo kale ay ka guuraan inay eegtaan cidlada oo dabeetana ay kaslaan ka faa'iideysta. ugumaanaan iman dambiilayaashii oo ugumaanaan iman way baxsadeen. waase ku daba jiraa oo waa niman la garanayo. hawshaas oo ay ka soo shaqeeyeen forestryga oo ka shaqeeya ka mid ah shaqaalaha dawladda, wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo imika bana la jooga. howlgalkaas wuu soconayaa, mid kala go'aya maaha. kuwo badan oo kolley hore halkan aan ugu qabanina way jireen oo aanu sharciga marinay. daraatoo dambaysay waxaa jiray qaar aanu xukunnay oo maxkamadda gobolka Daadmareer lagu xukumay oo iyaga laftooda aanu ku qabanay tuulooyinka Baarcad iyo u dhexeeya Beli Sahal. hawshani waa hawl aan iyadu marnaba joogsi lahayn, waa shaqo joogto ah habeen iyo maalin, khamiis iyo jimce iyo sabti aan kala lahayn. waa wadaynaa wixii deegaanka dhibaatada u geysanaya waxa weeyaan waa la dagaalamaynaa. ciddii aanu ku qabanana sharcigaanu marin doonaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. deegaanada maamulka Somaliland ayaa horey looga mamnuucay falalka qaybta ka ah xaalufinta deegaanka iyo shidada dhuxusha, waxaana dhowr jeer la saaray maxkamad ku taala deegaanada maamulkaasi dambiilayaal ku eedeysan xaalufinta deegaanka iyo shidada dhuxusha. saaxiib aabbaha kula hadlaya wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala Soomaali Sudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Soomaali Sudaneys aan idin kugu daray waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay 6 sano oo isku xiga isbitaalka ugu fiican Soomaaliya laga soo bilaabo 2019 ilaa iyo hadda. Soomaali Sudaneys Hospital SSH ku raaxayso isticmaal noocii aad doonto oo taleefan Samsung ah oo wata damaanad 2 sano ah. haddii uu ka ciladoobo si lacag la'aan ah ayaa lagugu farsamaynayaa ama lagaaga bedelayaa. Samsung Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet adeega